Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada 7 News Soomaaliya. Waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan Ilhaan Cumar saygeedii hore Axmed Xirsi oo guursaday gabar cusub. Balse inta aanu guda galin faahfaahinta warkan, haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqato channelkan, fadlan subscribe saar adigoo furanay gambaleelka si ay noogu noqoto dhiirigelin aadna u heshid wararkeena ugu dambeeyay. Waxaan idiin soo gudbin doonaa codka xafladda meherka saygii hore Ilhaan Cumar Axmed Xirsi oo dhawaan aqal galay isla markaasna guursaday gabar dhalinyaro ah oo aad u qurux badan. Gabadhan oo lagu magacaabo Ladan waxaa dhalay Admiral Faarax Qare oo horey xilal kala duwan ugu soo qabtay dowladihii soo maray Soomaaliya. Ilhaan Cumar iyo Axmed Xirsi oo isku dhalay 3 caruur ah ayaa isfuray oo kala tagay bishii November 5-teeda. waxaana furiinkooda uu yimid markii ay soo tareen wararka la xiriira in Ilhaan oo ka tirsan golaha Koongareeska Mareykanka ay xiriir jacayl la samaysatay Tim Maynard oo ah nin cadaan ah oo aan muslim ahayn, sidoo kalena ahaa madaxii ololaheeda doorashada xilliga ay u tartamaysay kursiga Koongareeska deegaanka Minnesota. Munaasabad si weyn loo soo qaban qaabiyay oo meher ah ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana Ladan oo uu dhalay Admiral Faarax Qare oo horey u soo noqday taliyaha ciidamada badda Soomaaliya isla markaasna leh jaamacadda Xamar oo Muqdisho ku taal, goobjoog ka ahaa isla markaasna Axmed Xirsi wakiil ka ahaa Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid. sida aad ku dhageysan doontaan cod aan idinkaga hayno xafladda meherka ayaa meherka Ladan waxaa lagu sheegay lacag gaaraysa $20,000 Mareykanka, waxaana lagu wadaa in dhawaan xaflad aroos oo weyn ay samaysan doonaan Axmed iyo Ladan lagu qabto gudaha Soomaaliya iyo Mareykanka. Ilhaan ayaa markii ay ku biirtay golaha Koongareeska Mareykanka shaqadeeda ugu horeysay ay qabatay waxa ay noqotay inay burburiso qoyskeeda iyadoo weliba ka doorbiday nin aan ku diin iyo dhaqan ahayn oo gaal ah. wargeysyada caalamka ugu afka dhaadheer ayaa dhowr mar soo gudbiyay sawirro iyo muuqaalo muujinaya Ilhaan oo waqti la qaadanaysa Tim Maynard, kaas oo isna si la mid ah xaaskiisa oo u dhashay hal wiil ka doortay Ilhaan Cumar. Ilhaan ayaa markii dambe maxkamad ku taal Minnesota u gudbisay warqado ay ku dalbanayso furiin, iyadoo ugu dambeyn si rasmi ah loo furay 5 November ee la soo dhaafay. Haddaba waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa codka xafladda meherka Axmed iyo Ladan oo Muqdisho ka dhacday shalay. dhageyste, sidaad u aragtaa talaabada u qaaday saygii hore ee Ilhaan Cumar Axmed Xirsi? jawaabtaada noogu soo hagaaji qaybta commentiga, hana iloobin inaad share garaysaan muuqaalkan. mahadsanidin. وهو أقبل أحمد حسين أنا كل زوجين على